Filimkeena waxa uu ka bilaabmayaa arday la dhaho Kim oo hogaamiye u ah koox ardayda ka mid ah oo soo dhaweynaysa arday ku cusub iskuulka, waxaana uu sharaxayaa nidaamka iyo dhaqanka iskuulka. In yar ka bacdi waxa uu ku amrayaa inay u fadhiistaan koox, waxaana uu keenayaa cunto ka kooban dirxiyo iyo qudhun. Wayna diidayaan ardaydii inay cunaan, laakiinse qasab ayay ku cunsiinayaan. Wareegaasi markuu dhammaado ayuu wareegga labaad ka dhigayaa inay u ciyaaraan si cayiman oo isagu u sheegay si ay ardayda kale uga qosqoslaan. Laakiinse ardaydan waxa uu sheegaysaa inayna u ciyaari karin sidaas. Kadib waxa uu sii wadanayaa tababarkii. Laakiinse ardaydan oo la dhaho Nano ayaa gacanta taag. Kadibna waxa uu sheegaysaa inuu sida ardayda ula dhaqmaya ma u soo dhaweynaya ayna ahayn mid sax ah. Kadibna waxa uu ka odhanayaa ardaydii cidda rayigeeda ku waafaqsan ay gacanta kor u taag. Waxaana kor u taagaysaa arday la dhaho Yuri. Kadibna waxa ay soo jaleecaysaa dhankii Yuri iyadoo dhoola cadaynaysa. Yuridanna waa gabadh meel walba ay Nano tagto ka daba tagtaa, garabna siisaa. Marka uu si walba u cadaabo waxa uu sheegayaa inay hadda fasax yihiin. In yar ka bacdina waxa uu imanaya maamulihii iskuulka, waxaana uu tusayaa fiidiyowgii uu ardayda ku cadaabayay, waxaana uu sheegayaa in waxaan uu samaynayo ayna sax ahayn. Yuri oo iska socota waxay arkaysaa Nano, waxaana uu sheegaysaa inay og tahay inay iyadu fiidiyowga faafisay. Waxa kale uu sheegaysaa inay jeceshahay inay sideedoo kale noqoto, taasina waa sababta ay u daba socoto meel walba ay tagto. Mar labaad ayuu isku soo ururinayaa ardaydii, waxaana uu weydiinayaa qofka fiidiyowga ku faafiyay internetka, waxaana uu uga shakiyayaa Nano, waxaana uu weydiinayaa inay iyadu ku faafisay fiidiyowga internetka. Nano waxa uu sheegaysaa inay iyadu ku faafisay si ay dadkoo dhan u arkaan inuu sida uu ardayda cusub u soo dhaweynaya ay qalad tahay. Kadib Kim ardaydii ayuu la hadlayaa, waxaana uu sheegayaa inuu iyaga u ciqaabi doono iyada darteed. Waxaana uu ku ciqaabayaa tababaro ka baxsan awoodooda, halka ay Nano beerka uga jiifto. Kadib korkeeda waxa lagu xidhayaa baabiilayaal si uu qof walbaaba ugu qarxiyo isagoo adeegsanaya budh si uu uga argoosto. Waxa laakiinse la yaab leh in Nano wadhaabahayn oo iska qoslayso. Qosolkaasina waxa uu ka cadhaysiinayaa Kim oo ku kalifayaa inuu isagu budhka la dhaco, laakiinse Nano qosolkeedii way iska wadataa iyadoo uu markan ku dhufanayo madaxa halkaana ugu dhammaystirayo. Kadib maamulkii iskuulka ayaa ogaanaya, waxaana uu sheegayaa inuu waxaan uu samaynayo uu ka badbadiyey. Laakiinse Kim waa uu baryayaa, waxa uu sheegayaa maamulkii in aabihii ay saaxiib yihiin una soo ashkatayn doonin, laakiinse uu iskuulka ka ergi doono. 3 bilood ka bacdi Kim waxa uu gelayaa iskuul cusub, waxaana uu la yaabayaa in Nano isaga marada ugu xidhayso gacanta, qaabilsan tahayna inay soo dhaweyso. Waxaana u sheegaysaa inaanu cabsoon. Waxaanay sheegaysaa Nano in isla markiiba uu qashqashaaday, waxaana garaacaya ardaydii, laakiinse waxa uu sheegaya inay been sheegayso, waxaana ay qaraacayaan iyagoo rumaysan ilaa uu ka qiranayo. Kadib markan waxay sheegaysaa in dumarku ay xidhaan labiska ragga, ragguna ay xidhaan labiska dumarka si ay u sinaadaan. Kadib ardaydii way xidhanayaan ilaa uu ka gaadhayo markii Kimna waxa uu ku raagayaa meeshii uu labiska ku soo xidhan lahaa, waxaana uu u diraysaa Nano ardaydii in ay Kim soo eegaan, wayna ka waayayaan meeshii, wayna soo qabanayaan ilaa uu ka xidhanayo. Nanona waxa uu sheegaysaa inay u ciqaabayso ardayda maadaama uu isagu qaldamay. Kimna waxa uu soo xasuusanayaa siduu ardayda ula dhaqmi jiray berigii hore, waxayna ardaydii ku ciqaabaysaa tababaro awoodooda ka baxsan. Waxayna marka dambe ka codsanaysaa inay madaxa hoos ugu dhigaan iyadii asxaabteeda, laakiinse Nano waxay Kim ka codsanaysaa inuu iyada aygeeda madaxa hoos ugu dhigo. Kimna waa uu diidayaa, laakiinse ardaydii waxay ku khasbaysaa inuu madaxa hoos ugu dhigo maadaama uu iyaga loo ciqaabayo haddii uu diido. Kadib ardaydii waxa ay samaynayaan inay dibadda u tuuraan si uu dibadda u seexdo maadaama isaga dartii loo ciqaabo. Kimna waxa uu isla markii arkayaa aygii, waana u garaacayaa, waxaana arkaysaa Nano, waxaana u sheegaysaa inay u ciqaabi doonto maadaama uu ayga qaraacay. Waxayna xadhigga ka sii daynaysaa aygii, waxaana ardaydii ugu dhawaaqaysaa si ay u soo helaan ilaa ay ka soo waayaan. Maalinka xigta waxa uu sheegaysaa in loo baahan yahay qof halkii ayga gala, waxaana uu sheegaysaa inay iyagu iska soo dooraan, waxaana ardaydii oo dhan u fiirinayaan Kim, waxaana qasab ugu xidhayaan xadhiggii ayga,
waxayna ku kalifayaan inuu u dhaqmo sida ayga. Kadib waxay ku xidhaysaa shabagii ayga waxayna u tuuraysaa hilib. In yar ka bacdi waxay imanaysaa saaxiibadeed Yuri waxayna ka sii daynaysaa shabagii waxayna weydiinaysaa Nano sababta ay uga sii daysay shabaga. Waxayna u sheegaysaa inay rabto inay hore uga argoosato. Kadib ardaydii bay u yeedhaysaa say Kim u soo raadiyaan laakiinse ardaydii way soo waayeen. Kimna waa wacararayaa ilaa uu ku arkayo gaadhi waddada taagan waana ku dhuumanayaa laakiin nasiib xumo waxa uu Kim gaadhigii dib ugu soo celinayaa meeshii uu ka tegay. Waxaana uu isku dayayaa inuu mar labaad ka baxsado laakiinse ardaydii way arkaysaa wayna daba ordayaan ilaa uu Kim ka dhex galayo harada. Kadibna Yuri waxa uu sheegaysaa ardaydii inay heshay meydkii ayga Kimna uu dilay. Kimna waxa uu sheegayaa ardaydii inaanu isagu dilin. Nano waxay garanaysaa inay Yuri dishay aygii laakiinse ay saa u samaynayso inay ka argoosato. Yuri waxa uu sheegaysaa ardaydii in qof kasta oo Kim darbadeeya aanu mari doonin tababar dambe. Ardaydina waxa ay qaraacayaan Kim ilaa ay uga dhammaynayaan. Filimkiina waxa uu ku dhammaanayaa Nano iyo Yuri oo ku faraxsan in ay ka argoosteen Kim. daawade haddaad xiisaynaysid filimkan qaybihiisa kale subscribe garee channelka share gareena si uu kuu soo gaadho fiidyo walba oo cusub.